shaqaalaha macadka cilmi baarista beeraha iyo xoolaha deegaanka Soomaalida ayaa dhirbeeris ku sameeyay wajahada hore ee xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo war-saxaafada ka soo saartay xiisada ka soo cusboonaatay marinka koonfureed ee badda cas madaxweynaha dalka Kenya ayaa xusay in beesha caalamka looga doonayo inay sare u qaado dadaalka ay ku bixinayso horumarka iyo xalinta saameynta isbedelka cimilada habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada saacada warka habeenimo ana waxaan ahay Sakariya Xuseen Cali haddii aan ku bilaabo shaqaalaha macadka cilmi baarista beeraha iyo xoolaha ayaa dhirbeeris ka sameeyay wajahada hore ee xafiiskaasi faahfaahin umuurtaasi ku saabsan waxa magaalada Jigjiga nooga soo diray Cali ayaan leh maxadka cilmi baarista beeraha iyo xoolaha ee dawladda deegaanka Soomaalida xaruntiisa weyn ee magaalada Jigjiga ayaa waxa ay shaqaaluhu maanta u dareereen oo ay dhirbeeris ku sameeyeen afaafka hore ee maxadka cilmi baarista beeraha iyo xoolaha waxaana looga dan lahaa dhirtan beerideeda in markaasi ay bilic iyo qurux magaalada ku soo kordhiso iyadoo lagu jiro diyaar garowga xuska maalinta 29 Hidaar ee fooda inagu soo haysa maareeyaha cilmi baarista beeraha iyo xoolaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Sharif Ali ayaa markaasi ka hadlay dhirbeeristan ay maanta shaqaaluhu ay sameeyeen marka waxaad arkaysaan in maanta shaqaaluhu ay ku hawlan yihiin beeritaanka dhirta iyada oo saaka salaad subax 6 subaxnimo iyo siday caadadu ahaydba bishii socotay Hidaar diyaar garowgeeda awgeed ay shaqaaluhu xagga nadaafadda iyo dhirbeerida oo macni bilicda nadaafadda nabadgelyada iyo maxaan ku idhaahdaa ay ka qayb ka ahaayeen annagoo markii horeba ay ahayd waajibna saaran oo hadda ka horna aad arkaysaan inay jirtay dhir meesha ku beeran oo aad ugu dadaalayna xagga dhirta oo qorshe aan ka leenahay haddana waxaaga wax lagugu darbaa waxaan nagu sii dhalisay Hidaar marka dhirbeeristaas ayaan maaragtay saacadii markay 5 saac ama 12 ayaan u diyaar garownay shaqaalaha 12 barkii u soo baxeen shaqaaluhu inay dhirta beeraan waxaan insha Allah rajaynaynaa inay qayb ka noqoto qurxinta iyo xoojinta bilicda magaalada Jigjiga sanoo dhirta aan beeri weyno waxa kamid ah meel jid fiican baa naloo sameeyay jidka bilicdiisa inaan ilaalino waxa qayb ka wajiga inaan hagaajino ku soo jeeda marka cid kastana waxaan ku guubaabinaynaa oo wado laami haysata oo kharash la geliyay canshuurtii dadka laga ururiyay wado loogu sameeyo Ilaahay nasiib u siiyay in badan baan haysanin oo dadkeena kamid ah in iyaduna ay qayb ka noqdaan oo aan noqonin wax ama maamul magaalo ama dawlad ama cid gaar lagu ogaado marka taasa maartay iyadana dadka aan fariin u faraya alaha dhirbeerista maanta ka sameeyay afaafka hore ama albaabka hore ee xarunta macadka cilmi baarista ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen sababta ay markaasi dhirtan u beereen iyo oga gol in markaasi ay ku soo dhaweeyaan xuska maalinta 29 Hidaar sidoo kalena ay dhirtani qayb weyn ka qaadan doonto bilicda iyo quruxda magaalada Jigjiga waana kuwan hadaladoodii waxaan arkaa inay tahay fikir wanaagsan oo wax weeye ololihii soo bilowday xilligii bishii Hidaar xafiisku wuxuu ku jiray muxuu ahaay hawlgal aad u fara badan oo xagga nadaafadda ee qabaleeyada ayuu qayb lixaad ka qaatay tani maanta waxay sii kordhinaysaa maadaama xafiiska horjigiisa ay tahay bilicda magaalada iyo xafiiska ahaanba waxa weeye mid ku dayasho mudan in shacabku ku daydo oo nin walba gurigiisa uu geed ka beero wallahi waxaan arkaa fursad aad u fiican waxaan dadweynaha aad iyo aad ugu xafiisyada kale iyo muxuu ahaay shacabka magaalada degan baan aad ugu booliyaa bal in nin walba dhulkiisa uu iskana nadiifiyo geedo quruxda ku beero hal noqoto kuwa midhaha leh ama kuwa muxuu ahaay harka iyo quruxda bilicda leh maaha markii horeysay cilmi baarista beeraha iyo xoolaha ee dawladda deegaanka Soomaalidu ay hawl sidan oo kale ay samayso hore ayay waxa u sameeyeen olole nadaafadeed oo ay markaasi ka sameeyeen xarunta dhexdeeda iyo agagaarkeeda iyadoo sidoo kale maantana ay ku bilaabeen inay markaasi sameeyaan dhirbeeris ay ugu talagaleen in markaasi lagu qurxiyo albaabka hore ee xarunta cilmi baarista iyo xoolaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Cali Aadan Shakaal TV Jigjiga wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa war-saxaafadeed maanta waa ka soo saartay xiisada ka soo cusboonaatay marinka koonfureed ee badda cas war-saxaafadeed ka soo baxay
wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaadhay xafiiska warqabadka shakaal ayaa waxa lagu yiri sida tan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa isha ku haysaa xiisadda amni ee ka soo cusboonaatay marinka koonfureed ee badda cas iyo gacanka cadmeed weeraradii u dambeeyay ee lagu qaaday maraakiibta dagaalka iyo kuwa ganacsiga iyo suurtagalnimada in burcadbadeed halkaa ka dilaacdo waxa ay hoosta ka xariiqaysaa baahida degdega ah ee loo qabo tallaabo iskaashi oo wax lagaga qabanayo khatartan sii kordhaysa waxa kale oo aanu ka walaacsanahay baa lagu yiri war-saxaafadeedkan saameynta dhaqaale iyo bulsho ee ka iman karta dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee ku soo kordhiya badda cas iyo suurtagalnimada inay kor u kacaan qiimaha badeecadda iyada oo ka dhalanaya korokac ku iman kara qiimaha caymiska maraakiibta ee gobolka Soomaaliland oo la xeeb dhererkeedu gaadhayo 850 kilomitir oo ay xili walba gaar ka hayaan ciidamada ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay qaaday talaabooyin dardar leh oo lagaga hortagayo falalka burcadbadeedda iyo tahriibka ee ka dhici kara badeeda labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxa aanu xoojinay ilaalinta xeebaha Soomaaliland si aanu u sugno ammaanka xeebahayaga iyo nabadgelyada guud ee badaha gobolka Soomaaliland waxay mar kale carabka ku adkeynaysaa sida ay uga go'an tahay inay xoojiso badqabka iyo amniga badaheeda aaga dhaqaale iyada oo ilaalinaysa mabaadiida iyo shuruucda caalamiga waxaanu diyaar u nahay inaanu iskaashi la sameeyno saaxiibada gobolka si aanu wax uga qabanno caqabadaha ay wajahayaan dalalka gobolku ee burcadbadeednimada iyo ilaalinta amniga badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeedkan madaxweynaha dalka Kenya ayaa xusay in beesha caalamka laga doonayo inay sare u qaado dadaalka ay ku bixinayso xasilinta isbeddelka cimilada warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa magaalada Nairobi nooga soo diray Sakariya Cabdullaahi Taaxo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa magaalada Dubai ee wadanka isutaga Imaaraadka Carabta ugu qayb galay shirka arrimaha cimilada ee COP28 ka sheegay in aan loo baahnayn in taageerada horumarineed ee la siinayo wadamada caalamka shardi loogu dhigo sida uu dalkaasi ula tacaalayo isbeddelka ku yimaado cimilada. What is our ask of the rest of the world? That we have to engage in the business of reconfiguring, re-engineering a new international financial architecture that will make sure that we have adequate resources. Hogaamiyaha dalka Kenya ayaa carabka ku adkeeyay in wadamada ay wax ka qaban karaan isbeddelka cimilada iyagoo dhanka kale ka shaqeynayo arrimaha horumarka sidaas awgeedna aysan hubnayn in lagu qasbo inay labadan qodob kala doorbidaan. William Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in aan la kala geyn karin kobcinta dhaqaalaha iyo wanaajinta deegaanka. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa xusay in beesha caalamka laga doonayo inay sare u qaado dadaalka ay ku bixinayso horumarka iyo xalinta saameynta isbeddelka cimilada. Ruto ayaa sheegay in baahiyaha horumarka ee qaaradda Afrika oo la iska indhatiro iyo dhalinyaradeeda oo la maalgelin ay tahay arrin aan sii socon karin. waxa uu martida ka qayb galaysa shirka cimilada ee qaramada midoobay u sheegay in la joogo xilligii Afrika laga dhigi lahaa qaaradda halbowlo u ah tamarta la cusboonaysiin kara ee kheyraadka dabiiciga ah. Tani ayuu sheegay inay muhiim u tahay yareynta wasakheynta hawada isagoo intaasi ku daray in dunida aynan daysan karin fursadaha ka jiro Afrika. William Ruto madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay in iyadoo caalamku uu wajahayo dhibaatada isbeddelka cimilada in arrin laga qoomooday tahay in weli loo kala qaybsan yahay waqooyi iyo koonfur. Hogaamiyaha dalka Kenya ayaa tilmaamay inay laga maarmaan tahay in loo jihaysto sida loo wada guuleysan lahaa. William Ruto ayaa xusay in aan loo baahnayn in dhibaatada cimilada loo arko halis durugsan. Waxa uu ku celceliyay in isbeddelka ku yimaado cimilada uu si aan kala sooc lahayn u saameeyo dalalka caalamka xitaa kuwa hodanka ah. Waxa uu tusaale u soo qaatay daadadka hadda ka jiro bariga Afrika oo ugu horeyso abaartii ugu darneed ee muddo 40 sano oo soo marto. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in aan cudur daar la heli karin haddii shirweynaha COP28 aynan ka soo bixin talaabooyin waara oo ku wax ool ah oo lagu xalinayo saameynta ka dhalato isbeddelka cimilada. Ruto ayaa sheegay in awood loo leeyahay rasimaalna loo hayo oo ay madaxda caalamka mas'uuliyad wadaaraad ka saaran tahay inay tallaabo qaadaan. madaxweynaha dalka Kenya ayaa markii dambe waxa uu ka qayb galay dood ku saabsaneed in wax loogu bedelo maalgelinta arrimaha cimilada. Waxa uu halkaasi ka soo jeediyay in loo baahan yahay in hanaanka maaliyadeed ee hadda jiro dib u eegis lagu sameeyo si uu u noqdo mid laga dheehan karo falcelin iyo hal abuurnimo. Zakariya Cabdullaahi Taaxo, Shakaal TV.
wararka kale xafiiska warqabadka shakaal soo gaadhayna waxa kamid ah xafiiska ka hortagga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS-ka ee deegaanka Soomaalida ayaa qabtay dood ku saabsan sidii loo dhimi lahaa ama looga hortagi lahaa faquuqa iyo takoorka lagula kaco dadka la nool cudurka HIV/AIDS-ka. doodan ayaa ka qabsatay xarunta shakaal TV ku leeyahay magaalada Jigjiga waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah ururada bulshada, culimooyinka iyo waliba dhalinyarada. hadda waxaa barbarkayga jooga agaasinka waaxda ka hortagga cudurka HIV/AIDS-ka oo doodan ka qayb qaadan isla mar ahaantaana soo jeedinayay. hadda waxaa barbarkayga jooga agaasinka waaxda ka hortagga cudurka HIV-ga ee xafiiska ka hortagga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS-ka deegaanka Soomaalida isagoo doodan ka qayb qaadanayay ama ay ku soo gudbinayay takoorka iyo waliba faquuqa ay la kulmaan dadka la nool cudurka HIV/AIDS-ka. mudane idin ku soo dhawo Shakaal TV dooda halkan ka dhacday bal iyo waxyaabaha kaga hadlayseen ku soo dhawo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaan ku qabanay dood wadaag ku saabsan sidii loo joojin lahaa takoorka iyo faquuqa lagula kaco dadka xanuunka HIV/AIDS-ka la nool. waxaan ogsoonahay in ay jiraan marar badan in bulshadeenu ay kala kulmaan dadka xanuunkan u asiibay habdhaqano aan wanaagsanayn oo lagu takoorayo isla markaana qofka ku sababaysa in uu soo doonan waayo ama uu heli waayo adeegyada caafimaad iyo daryeel maaragtay xafiiska iyo maaragtay goobaha caafimaadka laga siiyo. sidaa darteed waxaa muhiim noqotay in qaybaha kala duwan ee bulshada laga qaybgeliyo dood qaabkii loo joojin lahaa isla markaana ama loo yareyn lahaa takoorka xanuunka HIV/AIDS-ka dadka la nool ay la kulmaan. waxayna muhiimad leedahay in bulshadeenu ay fahanto in xanuunka HIV/AIDS-ku qofka xanuunka HIV/AIDS-ka la nooli uu inaga mudan yahay inaan soo dhaweynay naxariis u muujino balse uu inaga mudan inaan ka fogeyno isla markaana uu maaragtay ka fogaado goobaha adeeg iyo caafimaad uu ka heli karo maaragtay deegaanka Soomaalida. ma ka qayb qaadanaysaa in la faquuqo lana fogeeyo dadka la nool cudurkani faafitaankiisa iyo in bulshadii uu si sahlan ugu gudbo faquuq iyo takoorka lagula kacay ma ka qayb qaadanaysaa aad iyo aad qofku haddii la takooro waxay sababaysaa inuu qofku qarsado xanuunkii kow waxay sababaysaa in maaragtay qofku adeega heli waayo taasina waxay sababaysaa in fayraskii qofka uu kusii bato ama unugyadii jirka unugyadii maaragtay difaaca jirka uu kusii faafo xanuunku taasi oo keeni karta in qofku maaragtay uu qarsado isla markaana uu ku faafiyo bulshada qaybaheeda kala duwan. marka waxaan ogsoonahay daraasadii ugu dambeeyay la sameeyay in deegaanka Soomaalida marka Itoobiya deegaanada kala barbar dhigay inuu kamid yahay deegaanada ugu badan inta badan ka dhacaan takoorka iyo faquuqa lagula kaco dadka xanuunka HIV/AIDS-ka la nool. marka in mar walba bulshada qaybaheeda kala duwan laga qaybgeliyo qaabkii loo yareyn lahaa gaar ahaan dadka labeyntu ah bulshadeena in laga doodsiiyo isla markaana la fahansiiyo xanuunka HIV/AIDS-ka isla markaana ku lamaanayaan shaqooyinkooda caadiga ay wataan howlaha wacyigelinta iyo hortagga HIV/AIDS-ka. aad iyo aad u mahadsantahay. toddobaadkan waxaynu ku jirnay toddobaadka xuska maalinka ka hortagga cudurka HIV-ga taasoo lagu xusay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa isla markaana looga qayb qaadan lahaa dadaalada lagu yareynayo faafitaanka cudurka HIV-ga. iska hortagga cudurka HIV/AIDS-ka ayaa wada dadaalo lagu dhimayo yaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa kormeeray dugsiga tababarka ciidanka daraawiishta Jubbaland gacanta ku haysa ciidankan iyo taliskoodaba ujeedka tababarkan iyo baahida la idin qabo iyo midda guud ee qarannimada maanta qaramada Soomaaliyeed ee ina hortaala inaynu badbaadino dadkeena maanta fursad weyn bay idin tahay inaad ka mid noqotaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. fursad weyn bay idin tahay inaad u adeegtaan dadkiina. fursad weyn baa waxa idina inaad ka xoreysaan oo naftiina iyo dhiigiina aad u hurtaan inaad cadawga khawaarijta banaystay dadkeena dhiigiisa iyo maalkiisaba inaad ka xoreysaan oo qayb ka noqotaan aad iyo aad bay maaragtay fursad weyn ay idin ku tahay. waxaan rabnaa inaad ka faa'iideysataan oo u hoggaansataan carbintan la idin diyaarinayo sidaad cadawgaas ummadana uga difaaci lahaydeen idinka naftiinana aad uga badbaadin lahaydeen inaad
dhegaysataan ood u hoggaansataan macallimiinta casharada ay idin siinayaan idinka ayay faa'iido idin tahay qofku markuu muwaadin caadi ah uu yahay iyo marka intii la carbiyo tababar la siiyo wax weyn baa u dhaxeeya lama bedelayo qofkii oo lagama dhigayo Soomaali kale ama qof kale lagama dhigayo waxaa loo kordhinayaa kaliya khibrad marka orodka iyo tareerinka iyo kicidda iyo hawlaha aydan horay u soo arag markii aad joogteen darihiina gaarka markaad wadateen xaafadiina joogteen aydan horay u arag hadda halka la idinku siinayo waa kordhis naftiina lagu kordhinayo aqoon iyo khibrad gaar ah oo idinka maqnayd marka inaad ka faa'iideysataan oo u dhagan nugulataan macallimiinta casharada la idin siinayana aad si toos ah u qaadataan oo maskaxdiina gelisaan si aad hadhowdii bulshada Soomaaliyeed u adeegi doontaan aad oo la dhaxtagtaan oo ugu maaragtay dabaqtaan naftiina iyo nafta muwaadinka Soomaaliyeed idinku wakiilka aad ka noqon doontaan haddii alla idmo intaas waa intaas talabaad maantay dalkeenu wuxuu ku jiraa badbaado dib u soo kabasho iyo in aan ka xoreyno oo ka badbaadino cadawga muddada dheer ku soo jiray inay bahdilaan oo ay ka reebaan caalamku sida uu maaragtay horumarka iyo dhismaha iyo dhaqaalaha iyo maaragtay caafimaadka iyo waxbarashada intaba soo caalamku horumarka ugu sameeyay dadkeena ka reebay inaad ka hortagtaan ayuu yahay ujeedka maanta la idin soo xareeyay ee la idin tababarayo ee aad ugu beereysaan ciidamada qalabka sida hay'adda Global Media Campaign oo weheliyaan qaar ka mid ah xubnaha hay'adaasi iyo sidoo kale culimaadudiin ayaa waxa ay wacyigelin ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jigjiga warbixin umuurtaasi ku saabsan Fahmi Ibrahim ayaa magaaladaasi nooga soo dirtay hay'adda Global Media Campaign oo ay hogaaminayaan qaar ka mid ah xubnaha hay'adda iyo culimaadudiinka magaalada Jigjiga ayaa ka sameeyay wacyigelin qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaasi ujeedada wacyigelintan ayaa ahayd dardargelinta wacyigelinada lagu dabargoynayo caadada xun ee gudniinka fircooniga oo saameeyay kumanaan hooyooyin iyo haween ujeedada wacyigelintan ayaa ahayd dardargelinta wacyigelinada lagu dabargoynayo caadada xun ee gudniinka fircooniga oo saameeyay kumanaan hooyooyin iyo haween kaasoo u noqday dhaqan iyo caado bulshada Soomaaliyeed wacyigelintan oo ay qayb ka ahaayeen dhalinyarada haweenka qaar ka mid ah ururada bulshada iyo xubno ka socday golaha arrimaha islaamka ayaa booqday xaafadaha iyo qaar ka mid ah madaarista si looga wacyigeliyo gudniinka fircooniga haddaba waxa wareysi siiyay Shakaal TV qaar ka mid ah culimada iyo dhalinyarada waday wacyigelintan socdaalkeenan iyo hawshani waxay daaran tahay wacyigelinta gudniinka fircooniga iyo ciribtirka sidii looga hadli lahaa dadka xaafadaha in badan la maro xaafadii shanaad baan jeclahay inay tahay marka in gudniinkan lagala hadlo ummadda iyaga iyo jiilka ka dambeeya si ay uga badbaadaan dhibaatada uu leeyahay ay hooyada hadda joogtaa ay la daaladhacayso gabadheeda iyo taasitay dhali doonto iyo jiilka dambe oo dhan si uga badbaadi lahaayeen inaan ka wacyigelino marka ilaahay fadligiisa dadkuna way naga dhageysanayaan hadda sidii hore ma way soo dhaweynayaan way ka dhageysanayaan kulamo yaabayaan bulshadu inay arinta wada aqbasho nin walba meeshuu joogo uu dareemo waxan inuu diiniyan banaanayn akhlaaqiyan iyo nolol ahaanna ay u liidato oo gabadhii marxaladaha nolosheeda oo dhan ba ay dhibaateynayso iyadoo gabadha inay infection la daala dhacayso maalinka guurkeedana ay reerkeedii dhaqashadii la daala dhacayso maalinka umushii la daala dhacayso anaha inay tahay process u dheer oo gabadhnimadii kala bilaabanaysa marka barnaamijkaas in laga badbaadiyo jiilka dambe kuwii hore la daala dhacaan kuwa dambe in laga badbaadiyo mas'uuliyadna wada saaran culimada dadkaan culimada ahayn siyaasiyiinta odayaasha haweenka jaanib walba dhalinyarada in aad looga wacyigeliyo lagana tanaasulo ololahan maanta wuxuu ka mid yahay ololaha caalamiga ee 16 days of activism-ka reer galbeedku ay yiraahdaan oo 16 cisho oo olole la wado maalin walbana waxbay ku astaysan tahay maalinka xuquuqda aadanaha maalinka tacdiyada haweenka
maalinka aidiska iyada ku jira marka 16 cisho maalin walba ay wax ku astaysan tahay weeyaan marka hawshan aynu maanta wadnay waxay daarnayd in xaafadaha wacyigelinta la gaarsiiyo wacyigelintaas oo ku saabsanay tacdiyada ka dhanka ah haweenka waxayna kala qayb qaadanayay bahda culimada dhalinyarada saxaafadda ayuu campaign-ka in kala qayb qaadanayay cidda ugu weyneed campaign-ka iyadna naga caawisa waxa weyn hay'adda nololaha warbaahinta أول هري وحين تابرنا إياه وحين قبنا شرني محو شرر بين وقبنا شرني هذا ستي كدوم بين محو هاي هذا قبنا وإن محو حافظين تضد كلاجو تجو بعد جلنت اللي جالسي سي حافظ ولا بدي حافظ شهر كذا يودو أي جالسيسو هذه ده هالقفل بالبادية وحيلا معنا تايض ودي بالشدة دنا بالبادية. وصعب سنكود المجال تشجع حافظة كمية ونساق وصباحنا. ديسمبر هو دكتور دحيلاتنكا marka insha Allah waxaan ku wacyigelin xaafadahu inay gudniinka fircoonigu ay ka waantoobaan ay carruurtooda ku sameeyeen maadaama uu dhibaato badan u leeyahay nafsiyan caafimaad ah mustaqbalka labad intaba marka insha Allah inay wax ka qaataan rajaynayna Allahna ay natiijo badan ka soo baxdo hadii Ilaahay ilaaho Fihime Ibrahim Shakal TV magaalada Jigjiga wararka kalena idii haynana waxa kamid ah waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee Garaadwiil waa lagu soo dhaweeyay Xuseen Axmed Awguuled oo ka tirsan madaxda ugu sareysa ee hay'adda Green Climate Action oo xaruntoodu ay tahay dalka Mareykanka kana hawlgasha geeska Afrika sida Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxaa soo dhaweeyay mas'uuliyiin heer deegaan ah soo dhaweyn kadib qaybta nasashada garoonka ayaa waxaa warbaahinta Shakaal kula hadlay la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca siyaasadda Mudane Axmed Gurxan Cabdi oo kamid ahaa mas'uuliyiinta garoonka ku sugnaa Assalaamu calaykum waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa saaxiibkeen walaalkeen Xuseen Axmed Awguuled muddo dheer aan imaanin wadanka ama weligii imaaninba aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inuu wadankiisii hooyo iyo dadkiisii asagoo xaragoonayo sharaf leh uu ka soo dego dhammaanteena waxay noo tahay dhiirigelin in aan maaragtay aan laga maxaan idhaahdaa aan xididkii iyo deegaankii iyo dadkii ka maqnaa ee u ahaa maskaxda iyo qalbiga iyo hantida inay ku soo laabtaan waa sharaf iyo karaamay noo tahay Xuseen saaxiib ku soo dhawow gacmo furan qalbi furan dalkaagii hooyo iyo dadkaagii waxaan maaragtay rajaynaynaa inaad maaragtay wax badan iyo waayo badan aad ka sheekayso aad arki doonto maanta safarku ku bilow yahay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaad si rasmi ah u degto aad baan ku soo dhaweynayaa saaxiib allaha maaragtay ka dhigo safar khayr qaba dhanka kale waxaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay Xuseen Axmed Awguuled oo ka tirsan mas'uuliyiinta ugu sareysa ee hay'adda Green Climate Action aad iyo aad aan ugu faraxsanahay soo dhaweyntan qiimaha leh iyo maaragtay sida gacaltooyo ee la igu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga inkastoo sida uu sheegay Mudane Axmed uu safarku aad u dheeraa haddana waa u qalmaa in loo yimaado halkan waa markii igu horeysay ee wadanka imaado insha Allah waxaan rajaynayaa inay noqonin markii igu dambeysay marka waa mahadsantihiin dhammaantiin inta soo dhaweynta ka soo qayb gashay ay ugu horeeyaan shacbigii halkan maanta u taagnaa inay soo dhaweeyaan marka waa mahadsantihiin iyo TV-gan Shakaal oo runtii qayb lixaad ka qaatay tabinta barnaamijyada dalka maamulka cisbitaalka aadan cadde ee Muqdisho ayaa magaalada Beledweyne ka furay xarun caafimaad oo lagu talagalay in gargaar degdeg ah lagu gaarsiiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabigu bal xaqiiqdii waxa weeyaan aan ahayn markii noogu horeysay annaga ma aha oo xilligii ugu horeysay ma aha 2018kii waxa weeye gudoomiye Cabdullaahi waxa weeye waa uga mahad celinaynaa shaqadii wanaagsaneed ee nala soo qabtay nooma cusba annaga maanta gudoomiye waa mahadsan tahay waxaan leenahay jazaakallahu khayral jazaa hawshii aad nala qabatay waa ku mahadsan tahay annaga waxa weeye aadan Cabdullaahi Ismaan Foundation ahaan waxaan isleeyahay qolo naga horeysay inay jirin gudoomiye oo daawooyin ka jawaabtay macnaheed baahida dadkan waxa weeye
waxaan rabaa oo kale inaan u mahadnaqo dadka mujtamaca nala qabtay ee hawsha nala qabtay nala shaqeeyay nala soo dhaweeyay runtii ilaa maanta haddaan wax yar ka taabto shaqada habeen iyo maalinba waa wadnaa bismillaahi raxmaani raxiim aad waxaan horta marka koobaad ugu mahad celinaynaa anigoo ku hadlaayo magaca aadan cabdulle cusmaan foundation bulshadii iyo maamulkii gobolka hiiraan oo runtii si aad u wanaagsan noo soo dhaweeyey maanta oo aan hadlayno oo taariikhdu ay tahay 3 bisha December 2023 waxaan filaynaa already waa sitimaankii labaad oo aan dadkaas u shaqaynayno muddo habeen iyo maalin ah baahida runtii caafimaad ee meesha ka jirta aad iyo aad u fara badan tahay waxa waaye bukaanadu annagu inaan maalinkii shaqayno ayuu qorshaheenu u ahaa laakiin hadda habeen iyo maalinba waa taaganahay waayo hawsha waxaan ku nahay keliyaan ku nahay inta hadda aan ka warhayno adeegyo noo dhadhow oo hadda ka baxo male meesha bulshaduna aad ay u fara badan tahay barnaamijkan caafimaadka ah ee daafurtay aadan cabdulle cusmaan ee magaalada beledweyne ee gobolkan hiiraan ayaa waxaa ka hadlay cabdulaahi axmed maalin sufur gudoomiyaha gobolka hiiraan oo daafuray bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم waxaan maanta soo booqanay xaruntan dadka dabayshii Elena roobabka ka dhashay iyo fatahaadihii ka soo barakacay soo magaansaday aagan ceel jaalle qayb ka mid ah loogu gargaarayo markii saddexaad ama fatahaadii saddexaad aan xusuusnahay 2018kii inay halkaan nagu soo booqdeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo association-kan ama samafalkan caafimaadka aadan cabdulle cusmaan foundation la magac baxay inaan marka hore u mahad celiyo marka xigtana aan iraahdo waad mahadsantihiin tiimkaas magacaas iyo tabeelaha isku duulaya kule taariikhda Soomaaliya magaca iyo karaamada wasiirka macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta xilkii u kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee komishanka tamarta iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub xoojinta wada shaqeynta daneeyaasha aaga tamarta hadday noqoto markaasi xagga wasaaradda iyo hadday noqoto xagga shirkadaha iyo hadday noqoto kuwa tamarta cusboonaysiiya iyo hadday noqoto qolyaha dabdamiska iyo hadday noqoto xagga booliska iyo dawladaha hoose dhammaan waxa uu komishanku markaasi ka shaqeeyay inuu markaasi xiriir iyo xoojin wada shaqeyneed oo isku xidhan uu la yeesho markaasi si shaqadu ay u socoto si wanaagsan oo habsamiya komishanka inaan gudoomiyaha cusubna ku soo dhaweeyo xaajigeena cadaro markii aan wada shaqeyn jirnay lafteedana aan si aan balyeeyo waxaan ku rajeynayaa Axmedow in Ilaahay meel fiican ku geeyo yaa dhammaanteenba Sheekh Xasan waxaan u rajeynayaa insha Allah inuu ku soo dhawaado shaqadan cusub gudoomiyaha cusub wuxuu ka nasiib badan yahay gudoomiyihii hore sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan gudoomiyaha cusub waxa lagu wareejinayaa institution amba hay'ad dhisan laakiin markii hore ee gudoomiyaha hore uu yimid amba aanu nimid dhamaantayaba waxa laga bilaabay meel base ah oo maxanihii aanu xaadxaadanay anagu sidaan wuxuu bilaabi lahayn iyo siday hawluhu u qabsoomi lahaayeen marka nasiibkaas uu dheer yahayo waxaan leeyahay ku soo dhawow gudoomiye hay'ad dhisan annagoo diyaar u ah mar walba in hay'adda commissionku ay dastuuri tahay la shaqayno oo aan soo dhaweynayno oo anaga wasaaradda line minister noo tahay iyaguna ay regulatorka iyo wax badan ay shaqo ku leeyihiin diyaar baan u nahay waxaan isagana ka codsanayaa inuu Ilaahay xilka u fududeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub gudoomiyaha horena waan sii sagooteynaa gudoomiyaha cusub waxaan leenahay Ilaahay xilka lagu magacaabay Ilaahay kugu asturo gudoomiyihii horena waxaan leenahay wixii aad qabatay hore Ilaahay ka jisaysiiyo marka ma waa operation mar hadduu qofka soo ahaa gudoomiyenimana ma dhibayso uu durduru ku maraya waxaan rajeynayaa isagana waan hambalyeynaya waxaan rajeynayaa insha Allah inuu halka ay taagan tahay commissionku ee la soo gaarsiiyay uu ka sii qaadi doono meel fiican uu sii gaarsiin doono waan hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo xilka Ilaahay ha kugu asturo
ولا سمي ويكن جروب سكتر كي ولا سمي سياسة دي واحد بدن بايم كمودين كسر بعدين وزارته يكمشن كي شركته حيل كده وسوى ناكسن هذه يعني واحد كل شيء واحد بدن ما لا سومري مال وناكسن بيروتي مكتاجن تاعي أنت أصلا واحد نسيبه يالتي إن إما كل هو سوى شران بايب لاينكوا إن إكسبرتس كي أو الحيسية سلاشكي وجود ميرك عن تكشران. أنغو ديار أوه مروال با إن هيئة كوميشن كو أي دستوري تاعي لا شقينه وأن سود وينه وأنغا وزارة اللاين مينستر نو تاعي يجونا أي رجليتر كي واحد بدنا يشقى كل أيه ديار بانو ناي عن سجلا كعد سريع إنه إلى هاي الك أفضلية مرة بعد يا مرة دحاد وسود ويننا قدوميها عصب قدوميه هرنا وانسيس قوتينا قدوميها عصب حلينا هاي إلى هاي حلك اللي قوم مجعبي إلى هاي قوا أسطورة قدوميه هرنا وحلينا هاي وحياة قبضتي هري إلى هاي كا تساعد سيو marka ma waa operation mar hadduu qofka soo ahaa gudoomiyenimana ma dhibayso uu durduru ku maraya waxaan rajaynayaa isagana waan hambalyeynaya waxaan rajaynayaa insha Allah inuu halka ay taagan tahay commissionku ee la soo gaarsiiyay uu ka sii qaadi doono meel fiican uu sii gaarsiin doono waan hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo xilka ilaahay ha kugu asturo ولا سمي ويكن جروب سكتر كي ولا سمي سياسة دي واحد بدن بايم كمودين كسر بعدين وزارته يكمشن كي شركته حيل كده وسوى ناكسن هذه يعني واحد كل شيء واحد بدن ما لا سومري مال وناكسن بيروتي مكتاجن تاعي أنت أصلا واحد نسيبه يالتي إن إما كل هو سوى شران بايب لاينكوا إن إكسبرتس كي أو الحيسية سلاشكي وجود ميرك عن تكشران تاسو واحد كل سوى تقل دون تا إن ستاندر كي عالم كسر شغيني عبرته أنت هذا تيم هو شغيني سي زيرو وان كبلوني أنا جيب أرضين نقولني أنا جيب أيشار كعني أنا جيب أسمعني إما كرنتي واحد من هاي خبره لين فرق بدن يعني هاي هذا صح وزين النصيب إن يدك كسكوي معدن مع التسويق شقف كستابي سويديني وحوي لاير شبان وحلقوا دريم وحلقوا ريانا يا لاير شبان سيدا الله هلا وسؤال شيء كده حقوق حساب لكن تي لاير كاتش من شقوب بهين حول بو بهين كنت الشركة ويسود دالين نفورس بيسميين ميل في عم بيسود جارسيين لكن ما أنتها halka inaynu ka sii qaadno ayayna la gudboon marka kulay ka commission ahaan waxyaalahan culayska saari doono waxa kamid ah si aanu himilooyinka iyo hiigsiga commissionka uga midho dhalino koow inaanu wada shaqayn buuxa la yeelano cid kasta oo kamid ah daneeyaasha tamarta ha noqoto shirkadaha ha noqoto cid kasta wada shaqayn leenahay هنقطة دونرز ككلا هنقطة عد كستو أرنتها دنينسا إن أنا نقولنا قيب تيرا كقاعدة نقول ديار بون هاي حسن كمثل قدامي عصبة لكاني إنه آذ فهم سيء وآذ وقرنيه ولودر وكشغينيه وحكم مقضى قرش بدن أولي هاي شغلنا سوق سواحد هاي يتمرت السومال هذا هالكي تاجنت هاي جود هام بيسيت هاي أدبان كفر حسن أرنتها أدبان كوهم مليانية أدبان كوسو دوينيا إلى هاي كلها قبته فكر في عمل هالكلام كشكتب بحوم ميزان له إلى هاي كلها قبته هالجرينتيز إن على الرأي مخاطفة ياهو مال صفر وكبل هذا أنا وزارة ده واحد نبيد يدا وزارة كوميشن كأهل لوجو هذا الهيو إياه شركة لها مركي هورا شركة لها كوميشن كم يشتري واحد لا إلا شقين شرين شركة وزارة ده مركي قيل بدل ما كتير شرت حل بالله أركي أم بدي باهبا كانت إن السماء كوميشن مرن كمور دمانين واحد بيدا مرن بدنا نشترو واحد على الرأي مخاطفة يا إنه واحد بدنا كقبتي إنك سوون ميل دم يسترن أولين لجارين وحياة بدنا نشترين أو لو بهاي وحلقة قبته داوديل intaas waxa ku eeg saacada warka habeenimo warkan dhigiisa mar kale inta hawada dib u kulmi doono waxa idinkaga tagnaa amaana Allah